His Excellency President Isaias Afwerki, distinguished delegates, guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. It's a great honor for me and my delegation to be بدنا مدحوينه السياسة Afwerki mudanayaal iyo marweyn sharaf weyn bay aniga iyo wafdigayga u tahay inaan soo gaarno caasimadda qurxoon ee Eritrea casuumaadii aad noo fidiseen kadib hubaashii booqashadani waa mid labadeena qaranba taariikhda u galaysa waxaan kaga mahad celinayaa martigelinta iyo soo dhaweynta aad noo sameyseen aniga iyo wafdigayga I wanted to thank the great people of Eritrea who showed up today in the streets of Asmara for their warm welcome and expressed waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadka goobta ah ee reer Eritrea kuwaas oo maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada Asmara soo dhaweyn diiran iyo siday u muujiyeen xiriirka taariikhiga ah ee kala dhaxeeya walaalahood Soomaaliyeed mudana madaxweyne waxaan ku kalsoonahay in booqashadan taariikhiga ah ay ka dhalan doonto horumar iyo barwaaqo oo labadeena qaran dan u ah I had very productive discussion with His Excellency President Isaias Afwerki in which we focused on strengthening our two sides wada hadal miro dhal ah oo aan la yeeshay mudana madaxweyne Isaias Afwerki waxaan diiradda ku saarnay sidaan u xoojin lahayn xiriirka aanu wadaagno labada wadan oo kaliya aan taariikh ahayn balse lagama maarmaan u ah mustaqbalka ifaya ee aan wada dhisi doono labada yadaba waxaanu ogsoonahay in mustaqbalka iyagu isku xiran yahay maadaama aanu nahay laba wadan oo walaalo ah isku gobol ah waxaanu sidoo kale ku heshiinay inaan xoojino iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo horumarka gobolka Somalia and Eritrea are two nations which will benefit from enhanced levels of cooperation. iskaashigani waxa uu faa'iido weyn u leeyahay labadeena dal maadaama aan ka simannahay caqabado isku mid ah iskaashiga waxtar kale ee dawladda Soomaaliyeed ay doonayso waa mid sahlaya in labada qaran ay si buuxda u wada shaqeeyaan labadeena shacabna nabad iyo barwaaqo ku noolaadaan waxaanu doonaynaa inaanu caasimadaheena ka howlgelino safaaradaha labadeena qaran wax soo saarka dalkeenu si xor ah oo isugu kala goosho gobolka oo dhan where our goods freely travel across our region. The Somali government is truly committed. The Somali government welcomes the most recent peace agreement between Eritrea and Ethiopia. dawladda Soomaaliya waxa ay soo dhaweynaysaa heshiiskii nabadeed ee dhawaan dhexmaray Eritrea iyo Ethiopia waxa hubaal ah in gabi ahaan geeska Afrika uu ka faa'iido doono waaga cusub ee ku aasaysan nabadda saaxiibtinimada iyo wadajirka gobolka Eritrea waxa ay muhiim u tahay mustaqbalka geeska Afrika maamulkayguna waxa uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo maamulkaaga danta labadeena shacab iyo guud ahaan shucuubta geeska Afrika In other words, we urge all economic sanctions si taas loo gaaro waxaan ku baaqaynaa in gabi ahaan cunaqabataynta iyo xanibaadaha dhaqaale laga qaado dadka reer Eritrea si loo helo isdhexgal dhaqaale oo ka dhaca gobolka loona gaaro heshiisyo suurto gelinaya ganacsi xor ah kaas oo fududeyn doona isku socodka dadka iyo badeecadaha waad mahadsantihiin